الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنا قهري ما حنذكر اللي قالين إن حبسا كان صاحب صاني أنا حبسامي شيخ ما صاحب سامين أنا وقتي لي مسوي بحواي مركات الرالي هذا إن أهوال القيامة آخره يدفت الله وحله بالدنيا حقيقة قول بن آدم كوسكوا فقسين بين أوركرنا أما ومهم سنة يسكوا فقسين وينو دمانيو آدني أن رمي سنين مسألة دا سمجرو دادكو دمي وغيريون دونا غيري دا دباديدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحينو شاقي سؤاله hadda laynoo sii qadimay in layna weydiin doono su'aalo qof waliba uu hadda haysto jawaabteedana uu hadda qorayo markaad xabaasha gasho in malakul mawdku ku weydiin doono malakul mawdka ma aha laba malagoo la isu soo diray inay ku weydiin doonaan man rabbuk waxaa la isweydiin doonaa dunida intaad joogtay yaa rabbi ku ahaa waa kuma nebigaagu diintaaduna waa tee waa saddex su-aalooda hadda munaafiq iyo gaalba garan karaan iyo muslimba laakiin malaa'igtaasi oo ah malaa'ig muuqaalkoodu naxdin badan yahay bini aadamkuna markuu naxo wax ma xasuusto bini aadamku hadduu baqo oo uu naxo inta badan saani waxuma xasuusto waxa uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam su'aalaha saddexdaa marka la isweydiiyo qofkii dunida markuu joogay jawaabta fiican ka bixiyey aakhirana inuu jawaabta fiican bixin doono oo ilaahay baa u ballan qaaday inuu haleeshiin doono يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهي بصوي دونه وفق مؤمن كينا ربي الله الله إن ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام باي الرسول يا نبي إسلام كنا والدين تيدي سسحوا وجواب دونه أما dadkii munaafiqiinta ahaa ama gaalada ahaa haah bay odhan doonaan way garan waayi doonaan dabeetana waa la tumi doonaa waa la garaaci doonaa xabaasha warkeedu ma yara laakiin waxaan jeclay waxa ka dambeeya inaan maanta ka warramo qiyaamaha iyo dhibta jirta qiyaamaha maalinta qiyaame iyo burburka dunidan ku dhacaya iyo sida ilaahay dadka u soo bixin doono iyo xashriga iyo miisaanka iyo xisaabta iyo siraadka iyo jannada iyo naarta mawaaqif tiro badan weeyaan qiyaamaha iyo dhibta jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa in badan buu kaga warramay qof kasta oo muslim oo fahmi kara qur-aanku wuxuu sheegayaana wuxuu helayaa warkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maalintaa ka warramaya oo xaqiiqo ka sheegaya kow ilaaha weyn baa wuxuu ku sifeeyey inay maalin weyntay maalintani alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuun liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin ومالين وين با إلهي كتل مامية يعني دادكو يقيسانين أما ملاينين أنهم مبعوثون إن لصابحين دونه ليوم عظيم مالين وين إن لصابحين دونه مالين تاوحا كلو إلهي كسفية سبحانه وتعالى مالين علص ثقيلة إنيتي إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إلهي وحولي كوان قال ما وحي تعليهن تندق دكتا بدن لأدونك
waxaanay ka tegayaan baa ilaahay leeyay yowman thaqiila maalin culus waxaa kaloo ilaahay maalintaa uu ku tilmaamay maalin adag inay tahay casiir fadalika yowmaidin yowmun casiir cala alkaafiriina gayru yasiir waa maalin adag baa ilaahay yidhi oo gaalada marnaba aanu fududayn idan maalintan rabu الsamaawaati waalardi oo sifaynaya wuxuu leey waa maalin weyn waa maalin culus waa maalin adag ayaa ilaahay ku tilmaamaya subxaanaه wa tacaala waxaa ilaahay sifaynayaa maalintan baqaha iyo cabsida bini aadamka haysta inuu wareeri doono wax badanba mararka qaarkood aanu kala garan doonin waxaa rabbi ku tilmaamayaa ta uur kale in ilmuhu ka soo dhici doono waxaa rabbi ku tilmaamaya ta nuujinaysa inay ilmaha hilmaami doonto o ilaabi doonto ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha annaas itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shay-un cadiim wardadow waa rabbigiin ka dhowrsada baa ilaahay leeyahy waayo ina zalzalata saacati shay-un cadiim qiyaama gelgelinkiisu waa wax weyn baa ilaahay yidhi yowma tarawnaha tadhalu kulu murdicatin cama ardacat watadacu kulu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wama hum bisukaara walakina cadaab allahi shadiid